وهداودال ويلكان igala socotaan waa telefishinka caalamiga Universal Studio-heena magaalada London. Wadanka Djibouti ayaa waxaa ka furmay toddobaad loogu talagalay xuska barnaamijka maalinta afka hooyo dunida oo lagaga dabaaldego 12ka bisha February ee sanad waliba guud ahaan dunida idil. waxaana barnaamijkaas furitaankiisa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dawladda wadanka Djibouti. warbixinta ku saabsan waxa inoo soo koobiyay wariyaheena Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige oo dhawaanahanba ku sugnaa wadanka Djibouti. maantay waxaa si rasmi ah uga furmay magaalada Djibouti guriga ummadda ee inta badan shirarku ay ka dhacaan kulan muddo aad loo sugayay oo sanadla ahaa oo ahaa xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo. marka afka hooyo laga hadlayo dal kasta si gaar ah ayaa afkiisu uu gaar ugu yahay laakiin waa caalami waxayna ka wada dhaxaysaa guud ahaan bulshada caalamka. waxaa la xusayay 1999 markii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa laanta ugu qaabilsan dhinaca waxbarashada ee dhaqanka ee UNESCO ay u astaysay kadibna xuskaasi u jiray. Soomaaliya oo kamid ah wadamada adduunka ee taariikhda faca weyn iyo dhaqanka leh ayaa waxa ay kamid tahay wadamada aan ka harin ee ka hor intii laga dhawaajiyay xuska iyo kadibba. munaasabadii dooda ee toddobaadka afka hooyo ee caalamiga ahayd ayaa ka furantay magaalada Djibouti. waxaa ka qayb galay madax ay kamid yihiin wasiirka dhinaca dhaqanka iyo diinta ee wasaaradda u qaabilsan guud ahaanba arrimahan abaabulkeeda oo ah mudane Muumin Xasan Barre iyo gudoomiyayaasha Afar Ben iyo waliba Somali Ben iyo ku-xigeenadooda iyo madax kale iyo aqoon-yahano kale oo iyaguna ka qayb galay. wasiirka oo khudbad kooban halka ka jeediyay Muumin Xasan Barre waxa uu yiri walaalayaal fursad iyay tahay inaan nimaado maanta nigala soo qayb galo furitaanka shirkan. run ahaantii sidaad horeba inagu u sheegteen waxa weeyeen ahamiyad gaar ah ayuu leeyahay, qiimo gaar ah ayuu leeyahay. sababtuna waxay tahay walaalayaal waxa loo fadhiyo waxa weeyeen afkii hooyo kol hadii lagu laray af inkastoo ahamiyad leeyahay haddana hooyo markii lagu laray buu ahamiyad weyn oo gaar ah yeeshay. ilaahayna wuu sheegay hooyadu qiimaha ay leedahay. nabigeena calayhi salaatu wasalaam xaqa 3 goor buu siiyay markuu aabaha markii la tasiyay. saadaradeed afka hooyo qiimaha uu leeyahay halka warta ka bilaamayna. qiimaha kale uu leeyahay kulay iniga kale doono waan ogahay cilmi baaris haween badan iyo rag badan oo maskax maali maanta meesha isku yimaadeen kuna tala galeen ruuxantii ma oranayo soo tafaxayteen leeno tafaxaydka dad baa iska diiday kusoo tala galeen inay diyaariyaan marka maskaxdooda ay soo muroojiyaan soo diyaariyaan arrimo badan oo meel mara taariikhda gali doona lagu dhaqmi karayo waxna tari doona afka hooyo insha Allah ta'ala ana qota afka afariga amba si afka Soomaaliga kokan yar dul joogsado hadii aan ahay wasiirkii wasaaradani oo xil saarnaa dhaqanka. runaantii sida aad soo sheegtay iniguba dawladda jamhuuriyadda Djibouti oo hogaaminayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dadaal weyn bay walaalayaal iyo ku kacday oo ku aadan afka hooyo. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle horta runaantii mudnaan weyn buu siiyay sidaad garanaysan walaalayaal afka hooyo runaantiina afku u budan yahay. marka waxa uu soo kacay kulligii waad wada garanaysaan wax noo soo qabsanay waad garanaysaan waxa buugaan la qoray ee afafkeena lagu qoray waad garanaysaan waxa ugu dhow imanka waxa la yiri markhaatiga dheeray oo dhan maayo markhaatiga ugu dhow ee maanta halkan ugu dhow waxa weyn labada urur ee ka shaqeeyay afka oo ah Afar Ben iyo Somali Ben oo lagu asaasay halkan jamhuuriyadda Djibouti runtii ambase halkani ku kacay hooygooduna halkan u yahay una mataqaana aaba ka yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. waxa ku xigay walaalayaal akaademiyadii labadii akaademiyadood oo runtii iyaguna hadita hana qaaday oo shaqeeya oo iyaguna ku soo biiray dadalkaas. waxa jira bugaan badan oo lagu daabacay afkii hooyo lagu daabacay. waxa ugu dambeeyay kitaabkii Quraanka Kariimka hore af Soomaali waa lagu soo turjumay afariina in la dhameeyay uu Djibouti yaala maanta runtii walaalayaal. inta kadib waxaa suurtagal noqotay inaan la kulmo dadka ehelka u ah afka hooyo waa af Soomaaliga kana mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed waa Dr. Maxamed Daahir Afrax oo ah budigihii ama aasaasihii Somali Ben. waxaan kaloo uu yahay gudoomiye sharafeedka iminka waliba dhinaca qaaradda Afrikana xagga akademiyada arrimahan qaabilsan oo isaguna yahay
hogaamiye ama horseede waa ku soo dhaweynayaa marka hore telefishinka caalamiga universal doctor maxamed daahir afrax kuma cusbid bulshada soomaaliyeed aqoon-yahan baa tahay barnaamijkan aasaasihii baa tahay seed u aragtaa maantii toddobaadkan ka furmay magaalada jabuuti waa mahadsan tahay marka hore waxaan salaamayaa idinka bahda universal aad ugu horeyso iyo daawashada dadkana daawanaya iyo kuwana dhegeysanaya marka xiga haddaan u imaado su-aasha jawaabteeda munaasabaddan sidaan u arkaa waxa weeye waxaan u arkaa inay tahay fursad aada u wanaagsan oo u faa'iideyneysa daryeelka afka hooyo ee dadkeenna hadday tahay yani dadka soomaaliyeed